waa tahay waxaan halkan lagu soo bandhigay barodhagtiyo kala duwan oo ay soo saartay shirkadda ay leeyihiin laba gabdhood oo dhalinyaro ah Nagaad Habboon iyo Xamdi oo ka yimaaday magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa halkan ku soo bandhigay barodhagtigan Xamdi ku soo dhawo Somali Business TV barodhagtigan iyo waxa uu yahay sharaxaad bal naga sii bismillaah assalaamu calaykum markood waa mahadsantihiin Business TV barodhagtiga waa barodhagta hal abuur gabdho Soomaaliyeed laba gabdhood isu tagay kadib fikir maskaxda tuujiyeen ay garteen in wadankeena ay wax u soo saaraan oo ay ka maarmaan waxyaabaha dibadda looga soo dhoofiyo bulshada caafimaadkoodana ay u badbaadiyaan marka waa alaabo badan ilaa iyo 4 shay ah masaliyo cunada dhirta shaaha oo dhir caafimaad ah tii la isku qurxinayay oo gabdhihii si caafimaad qaba oo aan kiimikaal ahayn jirkooda ay qurxin kareen iyo unsiyadii caraftii waa tahay barodhagtiyada soo bandhigteen masalaha oo kala dadku ma garanayaan marka maxay ka kooban yihiin sharaxaad dheer iyo dadka daawanaya ka sii walaal masalaha waa dhir lagu darsanayo cuntada oo dhadhan u sameynaysa wadankan waxa laga isticmaalaa waxyaabo dibadda laga soo dhoofiyo sida maraq digaaga oo kale caafimaadkan dhaqaatiirtu wax isku raaceen inay caafimaadka gaaska kiciyaan sokorta iyo karka ay kiciyaan kan waa bedelkiisii meel dadku isticmaalayaan dhirtii wadanka iyo cagaarkii iyo dhirahii kala duwanaa ee dhadhanka iyo urta ee udgoonka u sameynaysa cunnada bay ka kooban tahay waa tahay shirkaddan aad aasaasteen goormee waqtigee baad aasaasteen halkeese ku aasaasteen shirkaddan waa shirkad caafimaadka saldhigeedu uu yahay shirkaddan waxaa laga soo aasaasay magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug waxaa la aasaasay 2019 muddo research baa lagu soo waday oo cilmi baaris iyo inay wax barodhagtigan u soo bixi lahaa 2020kiina waa shaqeynaysa waxay shirkad barodhagtigeed banaanka u yimid oo bulshada dhan isticmaasho bandhigii labaadna waa kan maanta halkaan aan joogno magaalada Garowe caasimadda gobolka caasimadda Puntland baan ku soo bandhignay reer Garowe oo ka faa'iideysteen wataad waa maasan tahay waxa kale oo dhinacayga taagan Habboon oo ah labada gabdhood ee shirkaddan aan barodhagtigan suurta galiyay waad maasan tahay waan kaga mahadcelinayaa waraysigeena qiimaha badan caawtoola waxay noo tahay habeenkeena aniga walaashada qaaliga garabkayga mutaanteeda xambac darsa waqti badan ay soo dhafarnay oo mutaqaana aan dadaal soo muujinay caawtoola iyo habeen ka horeysay aan mudugba ku soo bandhignay barnaamijkeena habeen farxad ay noo tahay runtii aad bay qiimo noogu leedahay in waxyaalaha dalka shisheeye laga sameyn jiray kuwaas oo caafimaadka bulshadeenna Soomaaliyeed aan u fiicneen maanta wax caafimaadkii leh isla markaasna aan doonayno inaan dalka shisheeye ka maarno inaan soo saarno farxad weyn bay noo tahay anaga kaliya farxad noo ma aha ummadda Soomaaliyeed dhan bay farxad u tahay waxaan doonaynaa inaan ka kaaftoono dalshii wax noogala keeno fariinta anaga kaliya naguma koobna bulshada dhan baa waxaan u direynaa fariin ku aadan saaxiibayaal aanu isku tashan isla markaasna wax anagu aan soo saarno aan isticmaalno aan ka kaaftoono waxyaalaha dalka shisheeye noogala soo dhiibayo waa foolxumo weeyaan runtii waxna kiciye bayna ahayd in aan noqono dal dhan oo dal kale ku hoos nool marka insha Allah taala tani waa ifaalooyinkii ugu horeeyay ee dhalinyarada Soomaaliyeed bandhigooda ahaa aad baan uga mahadcelinayaa reer Garowe oo barnaamijkan asmay aad baad u wasantaa midda koowaad dawladda waxaan ku codsanaynaa horta adduunweynaha dadkooda hal abuurka ay garab istaag bay u muujiyaan dawladda korta waxaan ku codsanaynaa haddii ay la dhacaan barnaamijkeena inay garab istaag noo sameeyaan oo garab istaagaas uu tiro badan yahay qayb inay ka eegaan waxa kuwaad waxaasna waxyaalaha aan caafimaadka u wanaagsaneen waxyaalaha bedelkooda ah in guud ahaanba ay joojiyaan way awood u leeyihiin inay joojiyaan dawooyin kiimikaal si khadna u soo gala waa in dawooyin kala joojiya si dawadan dhirteena ka imaatay waqtiga aan soo galinay mutaqaana dadaalka dheer naga soo baxay dadku u isticmaalaan oo dadka la tusaa waxa in ay ugu leeyihiin anagu wax ay dadku leeyihiin baa wadanaa laakiin waxa dalka la soo galinaya in cashuurta kaliya loogu eegana garanaysa wax soo saarka dalkeena la dhiirigeliyo waxyaalahaas ee dalkan laga kaaftoomi karo korso masalo oo kale waxa jirta mutaqaana dhir khaldan oo dadka gaas ku rido umada Soomaaliyeed dhamaata gaas bay aad ula tabcaanta qof kasta gaas buuqba waxa soo kale waa in bitaatan bala joojiya oo la isticmaalaa dhirteenan in anagu dhirteena wadnaa wax karto aan jeebkeena kala soo baxnay maahan marka caafimaadkooda la og yahay waa in waxyaalaha
la joojiyaa si shirkadda nagaad u socoto oo isla markaas wax soo saarkeeda u socdo oo guud ahaan bulshada hal abuurka la midka ee wax soo saarkeeda u socdo mid kale to waxaan rajaynaynaa inuu dalka Soomaaliya kaliya iska dhaafay inaan dalka shisheeye si wax noogu keeni jireen annagana maanta abuurkeena u geynaa ay isticmaalaan ay adeegsadaan in badan ba made in China aragnay China waa inay aragtaa made in Soomaaliya iyadoo isticmaalso gacanta ku haysata taas rajadana aad bay u dheertaa walaal insha Allah inuu rajayno doontaa